goortu waa 7 bishii 11 sanadkii 1982 afar ka mid ah saraakiisha sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa ka soo baxay safaaraddii Mareykanka ee magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Waxay iska dhigeen sida inay u socdaan xaflad dhalasho. Muddo yar markii ay socdeen ayay ku warheleen inuu gaari daba joogo. Waxay fahmeen in gaarigan ay leeyihiin sirdoonka Ruushka ee KGB. Markii ay marayeen meel iskoys ah ayna xoogaa ka qarsoomeen indhihii sirdoonka Ruushka ayay wadadii ka yara leexdeen. mid ka mid ah afartii sarkaal ee CIA-da ahaa laguna magacaabi jiray Bill Blanker ayaa si degdeg ah isaga furay albaabkii gaariga kadibna wuxuu ku orday luuq u dhawaa meesha si uu uga dhunto indhaha sirdoonkii saraakiisha Ruushka ee KGB-da. si loo siro sirdoonkii Ruushka laguna ekeysiiyo in Bill uu weli gaariga saaran yahay. haweenay ka mid ah saraakiishii gaariga saarnayd oo gacanta ku haysay shay loo ekeysiiyey sida keega dhalashada ayaa markiiba bilowday inay buufiso wixii keega u ekaa ee gacanta ay ku haysay, wuxuuna isku bedelay sida qof bini aadam ah. kadibna waxay dhigeen kursigii uu fadhiyey Bill oo ahaa kursiga hore, taasoo sirdoonkii Ruushka ee dabagalka ku hayay gaarigan ka dhigtay kuwo markii ay arkeen u mooda in ninkan uu weli meeshiisa fadhiyo, kamana aysan shakin in gaariga ay cidi ka degtay. dhanka kale Bill wuxuu madaxa gashtay koofiyad, maskarana wuu xirtay isagoo isku ekeysiiyey sida qof Ruush ah, wuxuuna u jihaystay inuu la kulmo shakhsi lagu tiriyo inuu ahaa shakhsigii ugu muhiimsanaa ee uu Mareykanku ku dhex lahaa Ruushka waqtigaas, laguna magacaabi jiray Adolf Tolkachev. haddaba maxay ahayd sababta ka dhigtay ninkan waa Adolf Tolkachev inuu khiyaameeyo dalkiisii Ruushka? sideese ku noqday basaaska ugu muhiimsan ee ay CIA-du ku dhex lahayd Ruushka? waxaynu ku ogaan doonaa muuqaalkeennan. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Wabari Media. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. inta lagu jiray dagaalkii qaboobaa, in qof Ruush ah uu Mareykanka u noqdo basaase maysan ahayn khatar oo kaliya, balse waxay ahayd arrin uu qofku naftiisa ku waayayo. qofkii tallaabada qaadana waxay ka dhignayd inuu naftiisa ku xukumay dil. Tolkachev isagoo taa og ayuu haddana go'aansaday inuu nidaamkii Soofiyeedka dhabarka ka toogto. sababta ugu weyn ee ku qaadaysay arrintanna maysan ahayn baahi lacageed uu qabay oo kaliya, balse waxay ahayd aarsasho iyo cadaawad daran uu u qabay nidaamkii Soofiyeedka. oo Tolkachev xaaskiisa hooyadeed ayaa ka mid ahayd kumanaankii qof ee lagu diray xasuuqii loo yaqaanay Stalinka. aabaheedna waxaa loo diray xeryihii loo yaqaanay Gulag oo ahaa xeryo dadka ku xiraysan lagu khasbi jiray inay ka shaqeeyaan shaqooyin aad u adag. sidoo kale cadaawaddii uu nidaamkan u qabay waxaa ku sii kordhisay kadib markii uu arkay in noloshiisa iyo noloshii dadkii Ruushka ahaa intooda badan ay tahay mid ciriiri ah oo gaajo iyo darxumo la ildaran, wuxuuna go'aansaday inuu kaalin ka qaato burburinta nidaamkan. sidaas ayuu ku noqday basaas u shaqeeya cadowgii ugu darnaa waddankiisa. mid ka mid ah xogihii ugu muhiimsanaa ee Tolkachev uu siiyey Mareykanka waxay ahayd tiknoolajiyadda difaaca hawada ee Ruushka. CIA-du waxay qiyaastay in ninkan uu Mareykanka ka badbaadiyey balaayiin dollar oo ku bixi lahayd cilmi baaris si ay u ogaadaan tiknoolajiyadda difaaca hawada ee Ruushka, wuxuuna Mareykanka si fudud ugu gacan geliyey sir kasta oo uu Ruushku lahaa. Tolkachev si dhab ah ayuu u doonayey inuu la xiriiro Mareykanka. wuxuu baaritaan badan ku sameeyey xubnihii sirdoon ee Mareykanka ee ka shaqayn jiray gudaha Ruushka. ugu dambayntii wuxuu 12 bishii koobaad sanadkii 1977 soo helay magaca xubin sare oo ka tirsan CIA-da oo ka howlgeli jirtay Moscow, laguna magacaabi jiray Robert Fulton. ninkan oo kaalin ka shubanaya shidaal ayuu soo garab istaagay. sheeko ayuuna la bilaabay isagoo iska dhigaya in uu rabo in uu barto. ayuu hadal uga bilaabay ma Mareykan ayaa tahay. wadahadal kooban kadib wuxuu u dhiibay warqad ay ku qoran tahay ujeeddadiisa, uuna ka dhaqaaqay. Robert markii uu warqaddii fiiriyey wuxuu la wadaagay CIA-dii isagoo weydiiyey waxa ay tahay inuu ku jawaabo. CIA-da oo ka cabsanaysa in tallaabadan ay tahay dabin ay sirdoonka Ruushka ee KGB-du u dhigayaan Robert ayaa faray inuu ka aamuso, wax jawaab ahna uusan bixin. muddo sanad ka badan ayay CIA-du aamusnaayeen. muddadaasna Tolkachev uu daba socday ilaa laga soo gaaray 1 bishii 3 sanadkii 1978. xilligaas ayuu si kadis ah meel u dhow safaaradda Mareykanka kula kulmay madaxa unuggii CIA-da ee ka howlgeli jiray Ruushka, wuxuuna markiiba u dhiibay warqad uu horay u sii diyaarsaday, taas oo uu ku qeexay shakhsiga uu yahay iyo waxa uu ka shaqeeyo, isagoo dalbanaya inuu Mareykanka la shaqeeyo uuna ka caawin doono helidda xogo xasaasi ah. sarkaalkii ayaa wakhtiga amray in ninkan baaritaan lagu sameeyo, lana soo ogaado waxa uu yahay, meesha uu ka shaqeeyo iyo dhammaan xogtiisa oo dhammaystiran. baaritaan dheer kadib waxay soo ogaadeen in Tolkachev uusan ahayn qof caadi ah, una yahay injineer ka shaqeeya xarun lagu magacaabo Fazatron
oo ah xaruntii lagu farsamayn jiray raadarada diyaaradaha dagaalka ee uu Ruushku samayn jiray. Xaruntan ayaa ahayd xarun si aad ah loo ilaaliyo amni ahaan iyo xogta shaqada ay qabanayso. Sirdoonkii Maraykanku markii ay ogaadeen in Tolkachev uu xarunta ka shaqeeyo, horena ay u raadinayeen inay xog ka helaan xaruntaas, waxay ogolaadeen inay shaqaalaysiiyaan ninkan. Tolkachev aad ayuu ugu farxay in ugu dambayn dalabkiisii la aqbalay, wuxuuna Maraykanka u gacan geliyey xogo tirabeel ah oo midba ay midda kale ka muhiimsan tahay. waxaana xogaha ka mid ahaa xogta raadaar la odhan jiray lockdown shutdown, kaasoo ahaa tiknolojiyad Maraykanku ka cabsi qabay inay Ruushku samaystaan. Tiknolojiyaddan oo kor u qaadaysay waxtarka diyaaradaha Ruushka, una sahlaysay diyaaradahaas inay si fudud u ogaadaan una burburiyaan gantaalada Maraykanka ee ka dhunta raadaarada. CIA-du inkastoo ay shaqaalaysiisay Tolkachev, haddana weli shaki ayay ka qabeen, waxayna go'aansadeen in si taxadar uu ku jiro ay ula xiriiraan. bilowgii hore waxay u sameeyeen magaca afgarasho, waxayna u xilsaareen inuu la xiriiro sarkaal lagu magacaabi jiray John oo ahaa Maraykan asalkiisu Ruush yahay. Tolkachev si xogta qaab fudud oo aan la fahmi karin uu ugu soo gudbiyo. CIA-du waxay adeegsan jireen dhowr xeeladood oo ay ka mid yihiin adeegsiga qoraalada ama khadka sirta ah, kaas oo Tolkachevich uu fariimaha qarsoodida ah ku soo qori jiray. Marka uu warqadan qorayo, wuxuu qaybteeda hore ku qori jiray qoraal isagoo iska dhigaya dalxiise caadi ah oo qof qoyskiisa ka mida fariin u diraya, halka dhabarka dambena uu ku qori jiray xogta uu dirayo isagoo adeegsanaya khadkii sirta ahaa oo ahaa mid qarsoon oo aan indhaha lagu arki karin. kadibna fariinta wuxuu ku diri jiray cinwaan ku yaala waddanka dibaddiisa. xeeladda kale ee ay adeegsan jireen sirdoonka Maraykanku si ay Tolkachevich uga helaan xogta ugu badan waxay ahayd kaamirada loo yaqaanay Pentax, maadaama xogtii uu soo dirayey Tolkachev ay aad u tiro badnayd, ayna adkayd in dhammaan xogtaas uu gacantiisa ku qoro. wuu soo sawiri jiray wixii uu xog arki karo, kadibna CIA-da ayuu ku wareejin jiray kaamirada. iyaga ayaana si degan ula bixi jiray wixii ay xog u baahan yihiin. si aan looga shakin CIA-du waxay Tolkachev u dejiyeen habraacyo ay tahay inuu si joogto ah u raaco. Tolkachev sidaynu soo sheegnay, shaqadan iyo xogtan qiimaha leh ee uu bixinayo wuxuu go'aansaday inuu ku qaato lacag dhan 10,000 oo rubi oo ah lacagta Ruushka. lacagtan wuxuu sheegay inuusan u qaadanayn baahi uu u baahan yahay, balse uu u qaadanayay mabda' uu aaminsanaa oo in kasta oo uu bishii qaadan jiray 350 rubi oo qura, haddana lacagtani wakhtigaa la joogay ee 80meeyadii aad ayay ugu filnayd, weliba baahidiisa way daboolaysay. lacag dheeraad ahna umuusan baahnayn. sababta uu Maraykanka u weydiistay lacagtanna wuxuu ku micneeyey inay ahayd inuu dareemo inuu qabanayo shaqo muhiim ah oo qiimo badan leh. dhab ahaantii shaqadan Maraykanka uu u qabtay waxay ahayd mid aad u qiimo badan. Maraykankuna lacagtii uu weydiistay 100 jibaarkeed ayay diyaar u wahaayeen inay bixiyaan haddiiba ay xogta sidaas u qiimaha badan helayaan. sanadkii 1980kii kulan dhex maray Tolkachev iyo saraakiishii ugu saraysay sirdoonka Maraykanka ayuu Tolkachev Maraykanka gacanta u geliyey 179 muuqaal, kuwaasoo laga soo duubay in ka badan 6,000 oo bog oo dokumentiyo sir ah. xogtan Maraykanka u gacan gashay waxaa ka mid ahaa uguna muhiimsanaa in Maraykanka ay markii ugu horeysay gacanta u gashay macluumaadka nidaamka dignineed ee hawada Ruushka ee loo yaqaan AWACS, iyo sidoo kale xogta sirta ah ee raadarada diyaaradaha MiG-25 iyo nidaamyadii gantaalada ee uu higsanayay Ruushku inuu mustaqbalka fog gaaro. injineeradii difaaca ee Maraykanku markii ay arkeen xogtan waxay markiiba u hawlgaleen inay casriyeeyaan raadaaradooda, iyagoo ku guulaystay inay sameeyaan horumarro ay bilowgii hore qorsheynayeen inay ilaa 10 sano ku gaaraan. xog ay sirdoonka Maraykanku bixiyeen mar dambe ayay ku qiyaaseen in Tolkachev uu Maraykanka u badbaadiyey $2 bilyan iyo 5 sano oo cilmi baaris ciidan ah. haddaba sidee lagu soo qabtay ninkan? maxayse ahayd khiyaanadii dhabarka looga toogtay ee CIA-da gudaheeda ka timid? sanadkii 1980kii sarkaal lagu magacaabo David Rolf ayay CIA-du u soo magacowday inuu madax u noqdo unuggii sirdoon ee ka howlgeli jiray Moscow. David markii uu sidaa u soo gaaray Moscow wuxuu dareemay ama garwaaqsaday in hay-addii sirdoonka Ruushka ee KGB-du ay la socoto tallaabo walba oo uu qaadayo. markii uu sarkaalkii damcay inuu la kulmo Tolkachev si uusan u kashifmin shakhsigan oo ay u arkayeen inuu yahay shakhsiga ugu muhiimsan ee Ruushka ay ku dhex leeyihiin, Rolf oo ay ku adkayd inuu ka baxo albaabka hore ee safaaradda ayaa xirtay garbeen ah iyo dhar duug ah, wuxuuna iska dhigay shaqaale farsamo oo safaaradda hawl ka qabanayay. kadibna wuxuu ka baxay iridda dambe ee safaaradda. markii uu la kulmay Tolkachev wuxuu Tolkachev sarkaalkan ka codsaday 2 shay oo aad u kala fog. kan koobaad ayaa ahaa kiniiniga loo yaqaan cyanide, kaasoo ugu talagalay inuu liqo haddii la ogaado arrintiisa iyo inuu yahay jaasuus. kiniinigan
ayaana u sababaya qofkii liqa inuu daqiiqado gudahood ku geeriyoodo. Tolkachev ayaa door bidayay haddii la ogaado inuu istilo intii uu KGB-da gacanta u geli lahaa. Shayga labaad ee uu sarkaalkan ka codsaday ayaa ahaa cajalado ay ku duuban yihiin heesaha roogga Maraykanka. Cajaladan ayuu u rabayay wiilkiisa oo aad u jeclaa heesahan. muusikada reer galbeedkuna wakhtigaas mamnuuc ayay ka ahayd Ruushka. Sarkaalkii ayaa u sheegay inuu labadan shayba uu u samaynayo. Muddo kadibna oo loo keenay labadiiba. Sannadkii 1981 sirdoonkii Ruushka oo loo malaynayo inay heleen xog sheegaysa in macluumaad xasaasi ah la dusiyey ayaa sii adkeeyey ammaanka iyo ilaalinta xarumihii muhiimka ahaa ee dalka Ruushka. Xaruntii uu ka shaqayn jiray Tolkachev waxaa lagu sameeyey dib u habeyn ballaaran. Shaqaalihii waxa laga beddelay aqoonsiyadii hore, waxaana la siiyey aqoonsiyo cusub oo casri ah. Sidoo kale waxaa la xadiday shakhsi walba macluumaadka loo ogol yahay inuu ogaado, waxaana meesha laga saaray macluumaadkii uu qof walba iska ogaan jiray. Waxaana aad u koobantay macluumaadkii uu Tolkachev helayey. CIA-da oo isku dayday inay kordhiso awooddii uu hay'adda ku dhex lahaa si macluumaadkii uu u keeni jiray ay u sii socdaan, ayaa arrintan ku guuldaraysatay. Bishii afraad sannadkii 1983 Tolkachev ayaa maqlay xog tilmaamaysa in baaritaan lagu hayo dadka awoodda u leh inay ogaadaan xogta sirta ah ee u gaarka ah diyaaradda MiG-29. Tolkachev wuxuu wakhtigaa mooday in la kashifay maadaama bil uun ka hor uu xogta diyaaraddan u gudbiyey sirdoonkii Maraykanka. Markiiba si degdeg ah ayuu gurigiisii ugu noqday, wuxuuna ururiyey qalabkii sirdoonka, kaamirooyinkii iyo lacagtii CIA-du ay siisay. Wuxuuna u cararay guri kale oo uu lahaa oo ku yaalay meel duur ah, isagoo halkaa ku gubay wax walba oo caddaynayay inuu basaas yahay. Wuxuu gaaray heer kiniinigii sunta ahaa uu carabka hoostiisa sii gashto mar kasta oo uu gelayo xaruntii uu ka shaqayn jiray, isagoo wakhti walba diyaar u ah inuu dhinto. Baaritaankii ayaa ugu dambayn soo gebagaboobay, lagamana shakin. Hase ahaatee CIA-da oo ka war heshay ficilkii uu sameeyey ayaa la yaabay dhiiranaantiisa iyo sida uu diyaar ugu yahay mar walba inuu dhinto halkii laga qaban lahaa. Middan ayaa sii kordhisay qiimihii uu agtooda ku lahaa iyo sidoo kale kalsoonidii ay ku qabeen. Sannadkii 1984 waxaa aad loo adkeeyey dukumentiyadii ka baxayey xarunta oo wakhtigii hore Tolkachev waxaa u suurtageli jirtay inuu dukumentiyada uu rabo uu qaato, gurigiisa uu ku sawirto, kadibna uu u diro CIA-da. Laakiin markan maadaama ay middaasi adkaatay, Tolkachev wuxuu sirdoonkii Maraykanka ka helay kaamiro yar oo nooceedu uu ahaa Trobel, taasoo lagu dhex qariyey furayaashii gurigiisa iyo xafiiskiisa. Kadibna wuxuu bilaabay inuu inta uu qaato waraaqaha uu rabo uu la galo suuligii xarunta, kadibna uu sawiro, sidaasna uu kula wadaago CIA-da. Tolkachev wuxuu dareensanaa in sirdoonka Ruushka ee KGB-du ay dareemeen xogta la dusinayo, balse aysan weli aqoon halka ay ka imaanayso xogtan iyo cidda dusinaysa. Wuxuuna iska ilaalinayay khatar uu ka filanayay inay uga imaan doonto gudaha Moscow. Hase ahaatee wuxuu mooganaa in khatartu uga soo wajahan tahay bartamaha Washington iyo hay-addii sirdoon ee uu basaaska u ahaa. Bishii labaad sannadkii 1982 CIA-da ayaa sarkaal dhallinyaro ah oo la oran jiray Edward Lee Howard sikadiisa ugu wareejisay Moscow si uu halkaa uga shaqeeyo. Sarkaalkani wuxuu muddo sannad ah u xil saarnaa akhrinta dhammaan fariimaha sirta ah ee ka imaanayay Moscow. Wuxuu had iyo jeer arki jiray magaca xambaarsan CK Sphere oo ahaa magaca afgarashada ah ee Adolf Tolkachev. Edward muusan garanayn qofka dhabta ah ee uu yahay Tolkachev, balse wuxuu ogaa inuu ka shaqeeyo xarun muhiim ah oo hubka lagu sameeyo. Edward markii CIA-du ay Moscow u direen, wuxuu bilaabay inuu shaqadiisii dayaco, wakhtigiisiina ku dhammaysto isticmaalka maandooriyaha, taasoo sababtay in markii dambe shaqadii laga eriyo. Edward markii shaqadii laga eriyey wuxuu caradaran u qaaday CIA-dii, wuxuuna go'aan ku gaaray inuu ka aargoosto. Kadib wuxuu xiriir la sameeyey sirdoonkii Ruushka, isagoo u sheegay inuu u hayo xog muhiim ah, wuxuuna dalbaday inay xogtaas kaga iibsadaan $60,000. Sirdoonkii Ruushku way aqbaleen, lacagtii ayayna siiyeen. Isaguna wuxuu siiyey xogtii uu hayay oo dhan, oo ay ugu muhiimsanayd inuu sheegay inuu jiro basaas ka dhex shaqeeya warshadaha militariga ee waddankooda. Sirdoonka Maraykankana uu la wadaagay xogo tira badan, wuxuuna la wadaagay magaciisii afgarashada oo uu ku sheegay in loo yaqaan CK Sphere. Sirdoonkii Ruushku markii ay heleen magaca CK waxay isla markiiba u direen sarkaal lagu magacaabi jiray Aldrich Ames oo u shaqayn jiray hay-adda sirdoonka Maraykanka, ahaana basaaskii ay Ruushku ku dhex lahaayeen hay-adda CIA-da. Sarkaalkan ayaa baaritaan ku sameeyey qofka uu yahay CK. Ugu dambayn wuxuu soo ogaaday inuu yahay Tolkachev. Bishii lixaad sannadkii 1985 Tolkachev, wiilkiisii iyo xaaskiisii Natasha ayaa fasaxoodii sannadlaha ahaa
ku soo qaadanayay gurigoodii ku yaalay deegaankii duurka ahaa ee aynu soo sheegnay. Sirdoonkii Ruushka oo ka faa'iidaysanaya maqnaanshiyahooda ayaa si qarsoodi ah u galay una baaray gurigoodii ku yaalay magaalada Moscow, waxayna halkaa ka heleen qalabkii sirdoon ee uu xogta ku gudbin jiray, kaamirooyinkii iyo kiniinigii sunta ahaa ee cyanide-ku ay ku jirtay. Waxay xitaa ogaadeen goorta iyo goobta uu ka dhacayo kulanka xiga ee Tolkachev uu la leeyahay CIA-da. 9 bishii 6, 1985, Tolkachev iyo qoyskiisii oo ka soo laabtay miyiga una soo socda Moscow ayaa waxaa gaarigoodii joojiyey nin ku labisnaa dharka askarta taraafikada. Hase ahaatee askarigani muusan ahayn taraafik ee wuxuu ahaa xubin ka tirsan KGB-da. Askarigan ayaa Tolkachev amray inuu soo dego. Isla markii uu sidaa u soo degay, waxaa 4 koone kaga soo orday ciidankii sirdoonka KGB-da. Meeshii ayaana lagu qabtay, madaxa ayaana jawaan loo geliyey, waxaana lagu tuuray gaari, waxaana isla markiiba loo gudbiyey xabsiga weyn ee loo yaqaan Leverzovo. Tolkachev markii la wareystay wuxuu qirtay wax kasta oo uu sameeyey iyo inuu basaas u noqday dalka Maraykanka, isagoo ku adkaysanayay in qoyskiisu aysan waxba ogayn, arrintanna ay keligii ku gaar tahay. Markii la weydiiyey sababta uu basaaska ugu noqday Maraykanka una khiyaameeyey dalkiisii, Tolkachev ayaa sheegay inuusan ficilkan u samayn jacayl uu Maraykanka u qabo, balse uu aaminsanaa xaqiiqna ay ahayd in nolosha iyo xorriyadda ay haysteen dadkii Maraykanka ahaa ay dhaantay tii ay haysteen dadkii Ruushka ahaa, una daneynayay in nidaamkan kaligitariska ah la burburiyo si ay bulshadu u hesho uguna noolaato nolol dhaanta tii ay ku noolaayeen. Tolkachev maxkamad ciidan ayaa si degdeg ah loo saaray, waxna ku xukuntay xukun dil ah, waxaana la tilmaamaa xilligii xukunkaas lagu dhawaaqay in ninkan uusan muujin wax cabsi ah. Xukunkaasna wuxuu ahaa kii uu filanayay haddii la qabto, oo mid uu u bareeray ayuuba ahaa. Ka hor intaan xukunka dilka ah lagu fulin, waxaa loo oggolaaday 15 daqiiqo oo uu ku macasalaameeyo qoyskiisa. Tolkachev ayaa xaaskiisii iyo wiilkiisiiba weydiistay inay iska cafiyaan maadaama uu horseeday dhibaatadan, balse wiilkiisii oo isaguna aad u necbaa nidaamka Soofiyeedka ayaa u sheegay aabbihiis inuusan waxba ka walwalin, ficil saxanna uu sameeyey. 24 bishii 9, sannadkii 1986, Adolf Tolkachev oo ahaa basaaskii ugu muhiimsanaa ee CIA-du ay ku lahayd gudaha Ruushka ayaa lagu furiyey xukunkii dilka ahaa. Xaaskiisii ayaa iyadana waxa lagu xukumay xabsi, waxayna sannadkii 1991 bilo yar uun ka hor inta uusan dumin nidaamkii Soofiyeedku cudurka kansarka ugu dhimatay xabsiga gudihiisa. Maanta xarunta dhexe ee CIA-da waxaa sulan sawir gacmeed weyn oo laga sameeyey Tolkachev. Sawirkan ayaa muujinaya Tolkachev oo foorara oo sawiraya dukumentiyo sir ah xilli ay saacaddu tahay 12:15 duhurnimo. Wakhtigaas oo ahaa wakhtigii uu qadada u bixi jiray, inta badanna jaaniska u heli jiray inuu warqadahan u sawiro CIA-da. Sawirka Tolkachev ayaa ah sawirka keliya ee qof Ruush ah uu leeyahay oo lagu xardhay gudaha xarunta sirdoonka Maraykanka ee CIA-da si loogu sharfo halgankiisii. Intaas ayaynu ku soo gunaanadaynaa muuqaalkeenna maanta. Haddii uu ku qanciyey muuqaalkan, ha ilaawin inaad like inoo saartid, sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Mahadsanidin.